asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu habeen wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan waa habeennimo khamiis ah bisha January ay sii galayso 19 sanada 2023 qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed iyo weliba amiirka waddanka isu tagay Imaaraadka Carabta oo kala saxiixday mashruuc cusub oo laga hirgelin doono deegaanka Soomaalida muxuu yahay heshiiskaasi iyo weliba mashruucaasi cusub ee dhex maray Itoobiya iyo isu tagay Imaaraadka Carabta xilli ra-iisul wasaaraha waddankaasi Itoobiya Abiy Ahmed uu ku sugan yahay waddankaasi Imaaraadka Carabta duqeymo ayaa maanta lagu laayay qaar ka mid ah amiiradii ugu caansanaa ee kooxda argagixisada ee shabaabka ayaa ka mid ah amiiradaasi oo ay dad fara badan oo Soomaaliyeed aad u soo dhaweeyeen dilkooda iyo weliba duqeymahaasi ay dowladda Soomaaliya maanta fulisay magaalada Baydhabo waxaa tallaabo laga qaaday mid ka mid ah golihii wasiirada ee xukuumadda Cabdicasiis Laftagareen oo horey isku casilay isla markaana hub tiro badan ku haystay gudaha magaaladaasi Baydhabo iyo wararkii ugu dambeeyay naga soo gaadhay magaaladaasi Baydhabo oo ka soconayay shirka dib u heshiisiinta maamulka Koonfur Galbeed iyo weliba mucaaradka qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka habeennimo ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaadhay waddanka isu tagay Imaaraadka Carabta ayaa sheegaya in halkaasi oo ku sugnaa maalmahanba ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed iyo weliba wasiirka maaliyadda ee dalkaasi Itoobiya Axmed Shide ay kala saxiixdeen isu tagay Imaaraadka Carabta iyo weliba waddanka Itoobiya heshiis mashruuc tamarta cadceedda looga dhalinayo koronto isla markaana labada dowladood ay kala saxiixdeen dowladda Itoobiya iyo weliba isu tagay Imaaraadka Carabta ayaa ku heshiiyay mashruuca cadceedda koronto looga dhalinayo mashruucan korontada ah oo qoraxda looga dhalinayo ayaa ku kacaya miisaaniyad dhan 400 milyan oo dollar oo ay Imaaraadku maalgelinayso deegaanada Itoobiya oo laga hirgelinayo waxaa ka mid ah deegaanka Soomaalida iyo weliba deegaanka Canfarta waxaana deegaanadaasi laga dhalinayaa tamar gaadhaysa 400 oo megawatt wasiirka maaliyadda Itoobiya oo warbaahinta dalkaasi la hadlay waxa uu sheegay mashruucan inuu qayb ka yahay heshiisyada iskaashi oo ay labada dhinac qalinka ku wada duugeen ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed iyo weliba madaxweynaha isu tagay Imaaraadka Carabta Maxamed bin Sayid Al Nahyan mashruuca dhismihiisu waxaa hirgelinayso shirkadda weyn ee tamarta oo laga leeyahay waddankaasi isu tagay Imaaraadka Carabta ee lagu magacaabo Masdar guud ahaan mashruuca Imaaraadka ay ka fulinayso Itoobiya oo ay qoraxda koronto uga dhalinayso ayaa celcelis ahaan soo saaraya koronto dhan 4000 oo megawatt si kasta oo ay hataba Imaaraadka Carabta iyo weliba dowladda Itoobiya ayaa muddo dheer waxay lahaayeen xiriir iskaashi oo aad u balaadhnaa waxaan ra-iisul wasaaraha waddankaasi Itoobiya uu abaal weyn u hayaa waddankaasi isu tagay Imaaraadka Carabta oo garab istaagay xilligii adkaa ee dowladdiisu ay gashay waqtigii dagaalada ba'an ku wadeen kooxda TPLF iyo weliba kooxihii isbahaystay ee markuu soo dhawaaday caasimadda waddankaasi Itoobiya Addis Ababa xilli ra-iisul wasaaraha waddankaasi Itoobiya uu waayay cid garab ku siisay inay dowladdiisu dib u soo noolaato ay garab istaageen dowladda isu tagay Imaaraadka Carabta iyo weliba waddanka Turkiga oo mar walba maanka ku hayo inay yihiin labadii dowladood ee ka badbaadiyay in uu guud ahaanba waayo kursigiisa dad badan ayaa isweydiinaya waxa mashruucaasi uu kusoo kordhinaya deegaanka Soomaalida iyadoo horeyba deegaanka Soomaalida looga hirgeliyay isla markaana ilaa iyo haatan aan wax faa'iido uga soo laaban dadka Soomaaliyeed ee deegaankaasi ku dhaqan dhankii shidaalka oo muddo dheer ay dadka Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaalidu ka warsugayeen ilaa iyo haatanna aanay guud ahaanba jirin wax ka soo naasacad ayaa haatanna waxaa ka bilaabmay mashruucaasi dhanka korontada ama tamarta cadceedda looga dhalinayo koronto taasi oo laga yaabo inay qaadato waqti dheer isla markaana ay guud ahaan dadka Soomaaliyeed muddo dheer ka dhursugi doonaan sida shidaalka oo kale si kasta oo ay hataba madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waxa uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddankaasi Itoobiya waxaana weli ka soconaya meelaha qaar oo deegaanka Soomaalida ka mid ah dagaaladii u dhaxeeyay Canfarta iyo weliba dhanka kale Oromada oo duulaan culus ku soo qaaday walow deegaanka Soomaalida war ka soo baxay lagu sheegay in la buunbuuniyay wararkaasi oo aanay wax badan ka jirin marka la eego xaaladdu sida ay tahay iyo weliba in dagaaladaasi haatan aanay sida loo sheegayo u soconin waa sida xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay ku doodaysay balse dadka deegaanka ayaa noo sheegay in dhanka deegaanka Canfartu ay duulaan culus ku soo qaadeen galbeedka gobolka City isla markaana dad fara badan ay ka barakaceen guryahoodii halka deegaanadaasina ay haatan ku sugan yihiin ciidamada deegaanka Canfarta iyo weliba kooxo Canfar ah oo isgarabsanaya jabhadda xoreynta iyo difaaca galbeedka City ayaa sheegay in ilaa iyo haatan aanay jirin wax gurmad ah oo dhanka dowladda Soomaalida uga yimid dadkaasi dhibaataysan ee doonaya in guud ahaanba la garab istaagay xilligan lana barakiciyay oo guryahoodii laga soo barakiciyay
waa tahay haatan anigan wararka naga soo gaaraya dhanka Soomaaliya wararka ka imanaya gobolka Mudug ayaa sheegaya in halkaasi laga maqlay joogta duqeyn xoogan oo lagu bartilmaameedsanayo kooxda argagixisada ee shabaabka xogta la helay ayaa sheegaysa in ay ku dhacayaan hawdka koonfurta gobolka Mudug gaar ahaan deegaanada bacaadka Faarax Aadan ilaa iyo buuraha deegaan oo ay ku dhumaalaysanayeen xubno ka tirsan kooxda argagixisada ee shabaabka sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda ayaa sheegay in halkaasi duqeynta awgeed ay shabaabku iskaga carreen gawaari dagaalna ay meesha uga tageen kadib markii halkaasi xaalkeedu ku xumaaday goobta la duqeeyay maanta welina ay gantaalada diyaaradeed ku dhacayaan ayaa qiyaastii 15 kiiloomitir u jirta deegaanka Xaradheere oo ay ciidamada dowladdu la wareegeen isla markaana kooxda argagixisada ee shabaabka oo doonayay in deegaankaasi ay mar kale kusoo rogaal celiyaan marka ciidamada dowladdu ay saldhigtaan ayaa haatan ciidamada dowladdu waxay u muuqataa in ay ka feejigan yihiin arrimahaasi magaaladaasina sida ciidamada dowladdu ay gacantooda u gashay ay ahaan doonto waxaana ciidamada dowladda oo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay duqeymahaasi u geysteen kooxda argagixisada ee shabaabka oo haatan meel ay gashala dhinaca kale iska horimaadyo ayaa la soo wariyay inay maanta ka dhaceen aagga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana la sheegay in khasaaro uu jiro balse aan si rasmi ah loo ogeyn tuulada dhagaxow ayaana la tilmaamay in dagaalku uu ka dhacay waxaana shabaab ay kordhiyeen weerarada taniya markii ay waayeen gacan ku haynta deegaano badan oo ay maamulayeen waxaana haatan ay bilaabeen dagaal ku dhufo ka dhaqaaqa inay ku qaadaan xeryaha ciidamada iyo weliba meelaha kale ee dadka shacabka ay ku badan yihiin iyo weliba qaraxyadoodii ismidaaminta ah oo ay weli sii wadaan si kasta oo ay haataba dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in haatan ay feejigan tahay ayna guud ahaanba soo jeedo oo aanay sidoo hore wax u dhici doonin marka la eego qaabka ay dowladda Soomaaliya haatan u howlgalayso iyo weliba sida ciidamada Soomaaliya ay tababarka buuxa ugu qaateen argagixisada iyo weliba qaabka loola dagaalamo si kasta oo ay haataba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku sugan yahay magaalada Baydhabo halkaasina waxa uu joogaa shirka dib u heshiisiinta maamulka koonfur galbeed oo madaxweyne lafta gareen uu guud ahaanba muddo dheer lugta ku walaaqay balse haatan la doonayo in la isu keeno mucaaradka iyo weliba xukuumadda uu hogaaminayo lafta gareen waxaa dhinaca kale la sheegay in wasiir ka tirsanaa xukuumaddii lafta gareen isla markaana iska casilay kadib markii uu u dulqaadan waayay dhibaatooyinka xooggan ee uu lafta gareen muddooyinkii u dambeeyay ku tagrifalka dhanka awoodda ahaa ee uu sameynayay haatan lagu sameeyay hubka dhigis isla markaana muddo dheer oo uu mas-uulkaasi ama wasiirkaasi uu ku sugnaa magaalada Baydhabo halkaasina uu hub iyo weliba ciidamo tiro badan ku haystay haatan dib u heshiisiinta waxaa qayb looga dhigay in uu wasiirkaasi uu soo xaroodo oo guud ahaanba hubka uu ka dhiga ciidamadiisa wasiir Ilyas Cali Nuur ayaa oo ahaa wasiirkii warfaafinta ee maamulkaasi koonfur galbeed ayaa xilkaasi iska casilay waxaana uu sheegay in uu u dulqaadan waayay dhibaatooyinka uu ku hayo lafta gareen shacabkii uu isagu matalayay kadib markii weerar lagu qaaday mid ka mid ah guryaha magaaladaasi Baydhabo oo deganaa siyaasi caan ka ah deegaanadaasi isla markaana maamulka koonfur galbeed aan la ogeyn sababta ay u weerareen balse la sheegay in kaliya ay halkaasi ku tuhmayeen in ay ku sugnaayeen dad xukuumadda lafta gareen ka soo horjeeda weli waxaa soconaya wadaxaajoodkii iyo weliba dib u heshiisiintii waxaana xogaha la helaya ay sheegayaan in weli la isku mari layahay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xilliga doorashada la qabanayo iyo weliba muddo kororsiga uu samaystay lafta gareen iyo warar kale oo sheegaya in lafta gareen guud ahaanba aan isku sharixi doonin xilka madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed halka lafta gareen uu weli isku dhajinaya arrintaasi oo haddii aanu xilkaasi isku soo sharaxaynina uu sheeganayo lacag tiro badan in la siiyo oo uu guud ahaanba kaga maarmi karayo kursigaasi inuu mar kale isku soo taago akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto uu taniyo kulanti dambe nabadgelyo